السلام عليكم مقالكنا كوبان عاو waxaynu ku soo koobi doonaa buugga Aamina al-Mufti kaasoo ka warramaya gabadhii basaasada Carbeed ee ugu caansaneed wakaalada sirdoonka Mossad ee Israel ma noqon doona taxane hase ahaatee wuxuu noqon doonaa halkan muuqaal oo kaliya qoraaga buuggu waa Fariid al-Falluji waxaa tarjumay qoraaga Soomaaliyeed ee Kamaal Marajaan tirada buuggu uu ka kooban yahay buuggiisu waa 327 buug nooca buuggu ka hadlayana waa sirdoon magaceeda oo dhameystiran waa Aamina Daawud Maxamed al-Mufti waxay ku dhalatay mid kamid ah xaafadaha dadka ladana degan ee magaalada Cumaan ee dalka Urdun sanadkii 1939 waxay ka soo jeeday qoys hodan ah abaheed waxa uu ganacsade adeerkeedna waxa uu kamid ahaa taliyayaasha ugu sarsareeyay ciidanka Urdun qoyskoodu waa muslim isirkoodu ka soo jeeday qoomiyadda shirkiska kuwaas oo dega wadamo badan ay kamid yihiin Urdun Ciraaq Turkiga Iran iyo qaybo kamid ah Sacuudiga sababta ugu weyn ee filqsanaantooduna waa dhul balaarsigii imbiradoriyadii Ruushka 1721 ilaa 1917 nolosheeda dugsiga sare waxay kula kowsatay qurux buuxda oo Ilaahay u dhameystiray dhan walba balse waxa uu dheereed dabeecad aan laga filayn oo santaag iyo kibir isugu jiro waliba nacayb xad dhaaf ah oo ay u qaaday dhaqanka dhowrsan ee qoyskooda muddadaas waxay isbarteen wiil asalkiisu Falastiini ahaa balse reer Urdun ahaa qorayaasha qaar ayaa ku dooda in wiilkani markii horeba uu ahaa Israa'iili hase ahaatee xogtaasi waxaad moodaa inaysan saxsanayn markaad daawanaysid muuqaalada YouTube-da la soo geliyay qaar kamid ah Falastiini asalkiisu Falastiini ahaa balse reer Urdun ahaa jacayl xad dhaaf ah ayay u qaaday nasiib darro waa uu ku hungowday oo waa uu kaga baxay aflagaadana waa uu ugu daray isagoo uu ku yiri waxaa tahay mid isla weyn sababtaas iyo carabta ay qowmiyadeedu dhex deganaayeen oo xurgufi ka dhaxaysay ayaa ku sababtay inuu dhaqaaqdo xaggaas Yurub waxay waxbarashada jaamacadda u tagtay wadanka Usdari gaar ahaan magaalada caasimadda Vienna waxay qolka jaamacadda la degtay ardayd aad u firfircooneed oo markaas jaamacadda sii dhameysay oo ahayd reer Koonfur Afrika laguna magacaabi jiray Julie Patrick Julie waxay Aamina bartay cabista sigaarka waxay kale ay u soo jeedisay inay iyagu dhameystirtaan baahidooda jinsi halkii ay wiilal la saaxiibi lahaayeen muddo kadib Aamina dhaqankaas waa ay qabatintay iyadoo gabdho badan oo ka dambeeyay Juliana la sameysay intaas kadib waxay isbarteen wiil Yahuudi ah kaasoo ay sababteen oo ahayd walaashii gooloonan jiray Sara oo lagu magacaabi jiray Moshe 1966 ayay dib ugu laabatay Urdun waxa ayna la timi shahaado PhD falsa ama khiyaali ah taasoo uu sameeyay saaxiibkeed Moshe shahaadadani waxay shaqo gelisay guddida waxbarashada hubinta shahaadooyinka ee Urdun iyadoo dib loogu diray Vienna si ay u soo cadeyso shahaadadaas waqtigaas waxay ahayd 1967 markii carabta iyo yahuudda colaadda u dhaxaysay meeshii ugu sarreysay marisay kadib ogeysiis ka yimid dowladda Israel ayaa Moshe iyo Aamina al-Mufti oo magaceedii bedeshay una bedeshay Ani markay isguursadeen Moshe sababay inay Ustari xaggaas Israel uga diga rogtaan dhimashadii aan hubashada lahayn ee laga soo sheegay ninkeedii Moshe oo diyaarad uu waday lagu soo riday Suuriya ayaa sababtay inay ku biirto wakaalada sirdoonka ee Israel ee Mossad tababaro badan oo lagu siiyay xarunta Mossad kadib waxay hawsheedii basaasnimo ugu horeysay ka bilowday magaalada Beirut ee dalka Lubnaan waxa ayna meeshaas isku barteen asxaab cusub oo ay kamid ahaayeen Maroon Hayik Manuel Asaf iyo Khadija Saran oo dhamaantood markii dambe shabakadeeda basaasnimo ku soo biiray iyadoo isugu sheegtay dhakhtarad si mutadawacnimo ugu adeegaysa carruurta iyo dumarka Falastiiniyiinta ayaa waxay dhex gashay oo ay ku dhex milantay dhammaan maamulka dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta ee PLO heer ay xataa gaadhay inay ka khudbadeyso iyadoo ooyeysa kuna boorinaysa hawsha ay hayaan ee xornimada Falastiin waxay la kulantay Yaasir Arafat oo ahaa hogaamiyaha ugu sarreeya ururka xornimada waddanka ee Falastiin ee PLO iyo Cali Xasan Salaam oo ahaa mid kamid ah madaxdii ugu sarsareysay wakaalada Falastiiniyiinta ee sirdoonka ee loo yaqaanay September Madow oo madax ka ahaa ururkaasi Cali Salaam waxa uu ahaa qofka koobaad ee Mossad doonaysay waqtigaas iyagoo markaas ugu magacaabay ama u bixiyay Amiirka Cas Cali Salaam waxaanu ka duubnay muuqaal gaaray ilaa 5 waynu socdaa waxaad ka soo daawan kartaa YouTube-keena inkastoo markii dambe khaarijiyeen hase ahaatee waxa uu markii dambe ugu kacay markay 10 sano raadinayeen dhibaatooyin badan ay ka soo mareen
qabashadeedii waxa ay qaadatay in muddo lagu raad joogo, taas oo hadba cidda ay rabto inay basaasto ay xog kale dhiman u gudbin jirtay, taas oo iyadana sababtay inay marar badan u gudbiso xog aan dhammaystirnayn Mossad. Fashilaadeedii waxaa ka qayb qaatay asxaabtii ay kula shaqayn jirtay Beirut oo qaar ka mid ah maxkamad lagu soo taagay isla Beirut. Waxa ay baarayaasha Falastiiniyiintu sameeyeen intii ay gacanta ku hayeen wax walba iyo si walba oo ay xog ku heli kareen. Ugu dambeyntii waxaa loo soo qaaday god lagu magacaabo Sarcana oo ay ku sugnayd muddo 5 sano ah. Godkaas waxay kula kulantay ciqaab nooc walba ay tahay. Nolosheeda godka waxaa ka buuxay boqolaal dhacdooyin oo mugdi ahaa oo weligeed qalbigeeda ka baxayn. walow ay jireen marar ay isku dayday inay baxsato, haddana marna kuma aysan guuleysan. Heshiis soo daahay, talo la rogrogay iyo fikir lagu dheeraaday kadib waxaa 13 February 1980 loo asteeyay in gegida diyaaradaha magaalada Larnaca ee Qubrus la isku dhaafsado Aamina al-Mufti iyo 2 maxbuus oo Falastiini ah, Maxamed Mahdi Basiisow iyo Waliim Nassar. Nolosha Aamina al-Mufti markaa kadib waxaa lagu sheegaa in meelo kala duwan ay ku dambeysay, balse warka ugu xoogan ayaa sheegaya inay Israa'iil ku dambeysay khiyaamo ay ku sameysay diinteeda, dhaqankeeda iyo qoyskeeda in ka badan 9 mar oo ay sharafteeda ku ciyaartay howlo basaasnimo, xiriidha ay la yeelatay Cali Salaame iyo Yaasir Carafaat, xooga lama ilaawaan oo ay u gudbisay Mossad ayaa ka dhigay Aamina Daawud Maxamed al-Mufti basaasadii Carabeed ee ugu caansaneyd Mossad. muuqaalkeena maanta intaas aynu kaga hadlaynaa. Nabaadiino.